dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ayaa maalmihii u dambeeyay ka cabanayay kororka qiimaha leydhka ee magaalada Berbera taasoo ay sheegeen inaanay marnaba helin leydh fiican oo tayo leh isla markaasina aanay macquul ahayn waqtigan in kor loo qaado iyadoo lagu jiro xilligii kuloola ahayd ee magaalada Berbera sidoo kale dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Berbera waxa ay soo dhaweeyeen Aamina Gaafare oo hadal haysa in leydh jaban keento magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil dadweynahan ayaa si mug iyo miisaan leh u soo dhaweeyay in koontada laga qaado magaalada Berbera isla markaasina ay u tartamaan shirkado madax bannaan oo bareefada iyo qaar dawliyaba in loo baahan yahay in shirkado kale la keeno magaalada Berbera leydhkiin oo lagu daray leydhkii bishii hore waxaan bixiyay $9 bishana $85 baa laygu soo qoray maxaan isticmaalay caruur yar baan haystaa laba maraxood baan shitaa waxaan leeyahay dadkay hawshan qusayso hoosana loo eego biyo ma helno leydhkiin oo taana lagu qaliyay magaalada inaan ka dareernaa la doonayaa cadaaladii isan cadaalad ma ahe madaxdeedii aan u codayno cadceeda u taagnayn si sharaf leh waxaan uga codsanaynaa in hoosna loo eego annagoo xaafadda Barcasheekha ruuxin ilaahay baa mahadle marka hore maxay annagoo xaafadda Barcasheekha maxay leydhkiina lagu qaali gareeyay ayaan ku cabanaynaa maxay marka hore $15 baan bixiyay marka $120 bay igu soo qoreen $2 marka waxaan leeyahay mas'uuliyadda Barcasheekh mas'uuliyadda Berbera gobolka Berbera in hoosna loo eego maati baan nahay maba shaqeyno bilaa camal baan nahay caruur 10 iyo 8 baan haysanaa kuwa dhalay kuwa si dhaleen baan haysanaa imika hooyin baa dadka aabiyo hooyo waa marka waana laga jisay maamulka magaalada ku nool in hoos noo eega magaalada Berbera danaynaysa oo leydh noo keenaysa waan soo dhaweynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaa hana laga soo gal islaamka ku salaam marka xigta leydhka waxa weeye bishii hore 30 buu nagu soo talaacay ilaahay nagu ogeey imiga 60 bay yiraahdeen bal 60 ka xagay iyagu ka keen waxaanu ka cabanayna biyo iyo leydh waxaan ku magaalada dhirtii iyo biyo baa la isku talaalay dadkina way haqeen oo biyo ma haystaan xagaa baa yimi dabeedna dadkii u codeeyana waanu nahay imikana magaalada waanu ka qaxnaa dhigadheer aanu ka raacayna magaalo gaar ah oo Berbera ahayn baanu samaysanaynaa sidaana lagu ogaado awayaan meeshii reer Barcasheekh waana Barcasheekh hadana talaadada baan u bixisay talaadada leeyahay way waayaan leed ma baxaan hadana bishii anaga $40 xiga maanta $85 la igu soo qoray marka maxay ku dhacday ma qaadan ma shidanin waxaan qabaan qaatay maaha khasab maaha in leeyin degdeg la igu qoro waxaan la hadlay si gaar ah oo la hadlayna Maayir Cabdishakuur Cidin dadkii ku codeeyay baan Maayir dhirtu kuumay codayn hoos noo eeg biyo laan baan haysa oo leydh laan baan haysa leydhka waxaanu bixin jirnay $12 $85 buu nagu soo qoray aqoonsan loo baan haynaa ma shaqeynaa anagu carruuraan aaba lahayn baan haysanaa dad maataa baanu nahay leydhkana laga jibiyo biyanaha loo keeno haddii kalena qolo kastoo leydhka keenta waan u baahan nahay waan soo dhaweynaa leydhka cusub ee Berbera soo hadalaya inay yimaadaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hadlayaa leydhka Berbera horta leydhka cid baa koonto lagu xidhay qof kale marka wax loo xidho wuxuu doonaa siinaya laakiin waxaan soo dhaweynaynaa Aamina Gaafare warshada leydhka ay Berbera soo wado hadaan nahay reer Berbera waxaan leenahay Aamina Gaafare soo dhawow gobolkaagii magaaladaadii meel aad digto wala ku siinayna kaabadaha anaga leh kaabadaha leydhka nimanka nimaysiin reer Berbera leh xarkaan anaga leh gobolkaagii waxaan ku soo dhaweynaa saabo furan iyo qalbi walaasba ku soo dhaweynaa soo dhawow baalan wixii cusub caalamka jecel cunahay qabteen dadkii magaalada maalin walba ku kordhinayaan aad iyo aad baan soo dhaweynaa Aamina Gaafare shirkadeeda leydhka birahana cidima laha dawladii hore ay siyaad baraale ma garatay waxa weeye mar haddii wax halaaliyo wixii magaalada ku soo kordhaya waa la qabanayaa anaga warshad baan ugu kaliyeysatay waa loo baahan yahay horta warshad labaad oo leydh aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wax halaaliyo wixii ay u baahan tahayna waa lala qabanayaa si gobonnimo leh oo sharaf leh magaalada lagu soo dhaweynayaa cidina ma diidana ninka diidayna isaga horta waalan markaa shirkad baa joogta shirkad labaadba way doonaysaa magaalada leydhkaana lagu qaali gareeyay awgeed shirkadda cusub ee Aamina waan ku soo dhaweynaa electric Gaafare soo dhawow walleen leydh jaban anaga jecelba mar walba hadama qaali baan u taagnaan maadaama reer Berbera wax leeyahay soo dhawow Gaafare suba caalamka jecel hadii shirkadii hore ay taagneed taa horna way noo shaqeynaysaa tadabana way noo shaqeynaysaa marka waxaynu ugu kordhay maahana amal baxnimo inuu ugu kordhay ma waxa naga dhimaysaa ma jirto waxaan leeyahay soo dhawow Gaafare electric aad iyo aad baan u soo dhaweynaa
warshadda leerka ee cusub ee imika la keenayo waayo sababtoo ah warshadan hore waa warshad cilada fara badan qaali noqotay masaakiin baa ku nool magaalada Berbera waa la garanayaa dad dan yara inta taajiriinta iyagu waa nimanka qaybta kule dad warshadan qaaliga ah leerka qaali gareysay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa warshadda cusub ee la keenayo barakaatu waxa weeye magaaladu leer bay u baahantay warshado badan oo leer la keenay waliba u baahantay warshadda leerka ina gaafanana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay magaaladu waa leer laan kaalay magaalada cid ka shaqaysatay u baahantay magaaladu aad iyo aad baan u mahadsantahay haddaanu nahay dhalinyarada gobolka saaxil gaar ahaan degmada Berbera aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa warshadda leerka ee ina gaafani waayo waxaan lagu haystaa leer laan warshad nagu kaliyeysatay oo dhigmeerata ayaan haysataa marka waxaanu leenahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waa iyada iyo kuwa kaleba waa loo baahan yahay maalmihii dambeeyay waxay soo tirayay cabashada dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil oo ka caawinayay kororka qiimaha leerka ee magaalada Berbera Maxamed Cali Dhuux telefishinka caalamiga Gobonimo TV magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil